madaxweynaha dowladda Puntland Ciidanka Dani ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kaga hortagay dhaawaca Generaal Fuad Xanaano iyo Dable Jaamac Nuur oo ku soo dhaawacmay howlgalka ciribtirka ee kooxaha argagixisada ah ee Daacish ee ku jira buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari kuwaasi oo galabta diyaarad lagu keenay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. madaxweynaha ayaa garab istaag u muujiyay askarta iyo saraakiisha ku soo dhaawacmaysa howlgalka ciribtirka ee lagula jiro kooxaha argagixisada ah isagoo u kuurgalaya xaaladda caafimaad ee saraakiisha iyo geesiyada kale ee ku dhaawacmay howlgalka iyo waliba dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ah kuwaasi oo u dhintay ama u dhaawacmay dalkooda iyo deegaankooda iyo dadkooda. wuxuuna furay guddiga taakulaynta ee ciidamada in xaaladda caafimaad ee saraakiishan si dhaqso ah looga howlgalo si ay u helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran haddii ay noqoto dalka gudihiisa iyo haddii ay noqoto dalka dibaddiisa labadaba. ciidamada dowladda Puntland ee ku jira howlgalka ciribtirka argagixisada ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen howlgalkii maanta ay la galeen kooxda argagixisada ah ee Daacish ee buuraleyda Calmiskaad kaasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka reer Puntland ee dhammaantood. afayeenka khaaska ah ee howlgalkan loo saaray ayaa waxa uu sheegay in 13 ka mid ah kooxaha argagixisada ay ka dileen askar kalena iyagana ay ka dhaawacantay khasaarana uu soo gaaray. hase ahaatee khasaare kasta oo soo gaara in aysan marnaba u joojin doonin howlgalkan ilaa ay ka dhamaystirayaan ama Puntland ay ka dhamaynayaan kooxaha argagixisada ah ee ku soo duulay deegaanada Puntland qaasatan gobolka Bari qaasatan dhulka buuraleyda ay adag tahay in la galo. waxay sheegeen in saldhigyo waaweyn oo ku yaala deegaano cusub ay ka qabsadeen kooxdana ay kala wareegeen iyagoo sheegay xogo cusub in ay ka heleen saldhigyadii waaweynaa ee ay qabsadeen ayna bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigi doonaan. waa rasmi radio fadlan daawade kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka intaba anagoo halkan si toos ah idinku soo gudbina dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee markaasi taagan. haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay muuqaalka noo like garee noona share garee haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir barta aan YouTube-ka ku leenahay ee rasmi radio.